zaki Somali cabaar ayaa TikTok waxaa la isdhaxwaday 500 hala gaarsiyo 500 iska badaayay bilyamo ayuu istaahilaa tilaabta uu qaaday awgeeda channelku waxaan ku soo gudbiyaa sheekooyin xiiso badan qisooyin xaqiiqo ah falogyo oo ayagana ay la socdaan qisooyin oo aad u xiiso badan waxaan si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القالقة وأوليشين سيو إذن الله أنا وعفمات قوامي لبضني ذاك جبتهم حاني رجينا أنا أطيع عفمات القبطان سوى هذا ومركلة إيو فيديو عصب فيديو كان أيان ما انتوحان أوهات لينها كين ما هنا وير كان زكي Somali عبار يا تيك توك وحال اسدحودي 500 hala gaarsiyo 500 iska badaayay bilyamo ayuu istaahilaa tilaabta uu qaaday awgeeda 27 Zaki Somali meexiye iyo team 27 xaalada kale oo ku saabsan ayaa waxaan doonayaa maanta aniga ka fiicnaan inaan ka hadlo waxa weeyaan ugu horeyn horta waxaynu ku hormaraynaa muuqaalka Zaki Somali ee baraha bulshada xogaa qabsaday ayaynu ku hormaraynaa oo aan isla daawanayna okay muuqaalka waa isla aragnay dabcan horta waxa weeyaa Zaki Somali odaygii Zaki Somali macnaha dadku ama dadweynuhu waxa u yeelan fahmeen dadka intooda badan inta iska badan iska caafimaad qabo jiraan warniyo dhalinyarada waxba kama dhaxeeyaan in iska siinaafay laakiin dadkaas ay nagu yar moogtahay dadka intooda badan waxa u fahmeen ninkan xogaa in caqli lagu hayo odaygii macallimka aniga laftirkayga oo imika muuqaalka daawanayay okay ni horta Zaki Somali asxaabay horta wuxuu ka tagay magaalada Nairobi wuxuuna aaday intuu magaalada Nairobi ka tagay Muqdisho iyo meelahaas Falastiin gabadha leeyahay iskuulada takhriban maalmeysire eegayeen garan maayo deedna awdo iska caadi adigu waxa weeyaan kadibna wuxuu aaday Zaki Somali Malaysia ayuu aaday balse dadku xogaa waxay yara tirsanayaan in macnaha aanu halkaas soo dhaweyn ama respecti aan ku haysan waa sida dadweynuhu ay tirsanayaan inaanu Zaki Somali wax respecti ah aan ku haysanin dhanka team 27 okay waxaynu u gelaynaa marka team 27 ni horta gooni goosad barnaamij leeyahay ay go'aan ku gaareen iyadoo aan xumaan la ii fahmin haddana waxa weeyaa dadkaasi macnaha inta badan waxay jecel yihiin dadka kale inay iska ilaaliyaan oo aanay soo dhaweynin kulley aanu ma garanayo sababta ay go'aanka u gaareen oo marmarka qaar waxaa Zaki Somali cabaar ayaa TikTok waxaa la isdhaxwaday 500 hala gaarsiyo 500 iska badaayay bilyamo ayuu istaahilaa tilaabta uu qaaday awgeeda tilaabtu waa tilaabtee ama yani ficilka uu sameeyay ficilkaas waa maxay Zaki sida wada ogtihiin Malaysia ayuu joogaa wuxuu wax la soo duubaa youtuberada Malaysia oo idil dhamaantooda ma kala socno kadib 2 milyan ayaa waxaa xiray Asad Xaajiyo sida wada ogtihiin milyankiisii koowaad buuq fara badan ayuu media isqabsaday kaasoo xataa qabiil arintii gaarsiiyay kadib waa laga soo farxashay waa laga soo jafjaftay waa laga soo tagay haddana waxaa la abaabulay 2 milyan in haddana buuq la furo buuqaas wooba furmaybo oo xoogaa inta ku garaabde dhan way soo wada kiceen balse yaa istaajiyay yaa diiday in oo buuqa sii socdo ama yacni qof walbaba iska soo qeeliyo
wiilka keliya oo laga samaysan lahaa buuqan. Zaki haddii uu aamusi lahaa laa shaki ayuu buuqan magaalada u geli lahaa oo qof walbo wuxuu asiga isleeyahay ama uqdada asiga ku jirto ayuu soo bixi lahaa wuxuuna dusha ka saari lahaa Asad. balse Zaki arintii ma ka aamusin. mar alla markii la dhahay Zaki la cunsuriyeeyay, Zaki waa laga tagay, Zaki waxa looma dalxiiska looma wadin. waa nin weyn, waa wiil yar oo haddana nin weyna, waa wiil aad iyo aad u aqli badan. inuu soo fadhiistay TikTok ama meeshii buuqa laga soo aasaasay ayuu wuxuu afkiisa ka qirtay horta qof celisay inuusan jirin oo jeebkiisa celiyay, qof cunsureysay inaysan jirin. dhalinyartaasna ee dhalinyaro isjecel yihiin waab kasta oo bariyane ee is arkaan in ay yihiin dad walaalo ee marna wax isla duubtaan marna ay wada qadeeyaan in ay yihiin ayuu sheegay. reer indho ku garaadlane kiiskoodii bartaas ayaa lagu soo xiray. wiilkan aadka u aqliga badan ayaa waxaan leeyahay 500 ayaaba la heedeene malyamo ayuu istaahilayay. maasha Allah dhaha. intaan ayaan jeclaystay in aan la wadaago. hadaa hore ila joogtay oo maasantahay daawashada videogan. haddii aad igu cusubtahay fadlan soo dhawo channelkuna waa channelkaaga subscribe dheh, furo gambalelka si uu ku soo gaaro wax walba ee soo dhigto. waasha ziyo kule dunidu waa wax yar ee gaaban is xisaabi inta aan loo xisaabin.